wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa si rasmi ah ugu soo waramaya inay jiraan in maxaabiistii ugu tiro badneed oo ka tirsan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab si rasmi ah gacanta ugu dhigan ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya xilligan si rasmi ah loo soo bandhigay maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ay soo bandhigeen ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ku dhawaad gaaray 400 oo ka tirsan argagixisada Al-Shabaab isla markaana ciidanku ay wareysiyo kala duwan la yeesheen inta badan Al-Shabaab ayaa waxa ciidamadan la wareysiga laga qaaday waxay sheegeen inay ka soo kareejiyaan deegaanada koonfur galbeed iyo sidoo kale Muqdisho waxay sheegeen in la soo khalday isla markaana lagu soo khalday in dagaal baan ku qaadaan Itoobiya isla markaana ay xilligan ay aad uga xoyihiin waxyaabaha ay gacanta ay ku hayaan ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya saraakiil ka tirsan warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Al-Shabaab wali lagu gari jiro in laga saaro qaybo kamid ah Itoobiya ay ku dhuumalaysanayaan iyo gobolada Shabeellada Hoose waxaana ciidamada ka tirsan ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ay sheegeen in la sii wadi doono howlgalka ciidan ay ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya wali ay ka wadaan qaybo kamid ah wadanka Itoobiya Al-Shabaab ayaa inta badan waxa ay weerar culus ku qaadeen deegaano ka tirsan Itoobiya isla markaana ay si rasmi ah u akeeyeen deegaano fara badan isla markaana ay rabeen in halkaasi ay ka geystaan xasuuq baan walow ay iyaga xasuuq aad u xoogan ay u geysteen ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya saraakiisha ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ku soo waramaya isla markaana warbaahinta qeybaha kala duwan la hadlay ayaa sheegay in ciidamadan soo weeraray dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya yihiin dad ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya iyo sidoo kale bartamaha Soomaaliya waxaana inta badan wareysiyo kala duwan oo lagu yeeshay meesha gudaha magaalada caasimadda Jigjiga xabiista laga qabtay ciidamada ka tirsan argagixisada Al-Shabaab ay shaf ku dhufteen ee ka soo kala jeedaan deegaanada Soomaaliya oo dhan isla markaana ay yihiin dad la soo khalday aanan filin in xilligan ay weerar culus ku qaadayaan Itoobiya isla markaana dagaal culus la galayaan Al-Shabaab ayaa bareed bulshada ku soo qoraysa in aysan jirin wax maxaabiis oo laga qabtay walow ay ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ay sheegeen in wali ay maxaabiis fara badan soo bandhigi doonaan saacadaha soo socda walow ay jiraan in haatan ilaa hayaan ku dhawaad 500 in ka badan oo maxaabiis oo laga qabtay kooxda Al-Shabaab iyo dadkii deegaanka soo weeraray Itoobiya waxaan wararku inta ku dirayaan in ciidamada Itoobiya ay wali ku jiraan howlgallo waaweyn oo lagu baacsanayo haraadiga kooxda Al-Shabaab si looga saaro deegaanada ka tirsan Itoobiya oo wali ay xilligan ku hareeraysan yihiin kooxda Al-Shabaab saraakiisha ciidanka Itoobiya ayaa muddooyinkii dambe waxay si rasmi ah ay xoog kala duwan la wadaagayeen shacabka iyo sidoo kale dowladda Itoobiya ku aadan in wali howlgalka la sii wadi doono isla markaana ilaa haatan laga quusanin haraadiga kooxda Al-Shabaab oo wali ku jira deegaano ka tirsan dalka Itoobiya waxaana jirta in wali ay ku sugan yihiin deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan isla markaana halkaas ay tahay marka kaliya Itoobiya ay u soo mareen in ay gudaha ay u galaan dalka Itoobiya isla markaana weerar ay ka geystaan qaybo kamid ah dalka Itoobiya kooxda argagixisada Al-Shabaab ciidamada la soo bandhigay ku dhawaad gaaraya 400 oo ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab isla markaana ay soo bandhigeen ciidanka Itoobiya ayaa intooda badan waxa ay sheegeen in la soo khalday isla markaana aysan filin in ay xilligan dagaal kala hortagi doonaan ciidanka iyo booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya